Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan. Maanta fiidiyowga sida aad ciwaanka hore aad kusoo aragteen iyo shaashada aad uga jeedaanba waa waxa beri la keenayo. Konami khamiis iyo isniin ayay wax keentaa. Berina waa isniin. Konami maxaa ay soo wadaa? Fiidiyowga ayaa ku daawo doontiin. Fiidiyowga intaan aan u gudagalin asxaabta waxaan idinka codsanayaa fiidiyowga inaad like saartaan, sharena inaad ku qabataan, channelkan inaad subscribe saartaan si aad mar walba fiidiyowyada oo af Soomaaliga base aan ugu sharaxno oo aadka iyo aadka u xiisaha badan aad ula socotaan. Marka asxaabta fiidiyowgeena ayaan bilaabi doonaa insha Allah. Asxaabta sida aad ka warhaysaanba Konami beri club selection badan ayay ka keeni doontaa. Club selectionadaas tirada badan oo hadda shaashada idinkaga muuqdo, waxaa ugu horeyn doono oo hadda shaashada idinkaga muuqdo waa Juventus, Lazio, Liverpool iyo City. Waa 4 club selection, waa Juventus, Lazio, Manchester City iyo Liverpool. Dadka qaar waxa ay doonayaan ciyaaryahanada qaar ay rajeynayaan oo 2021 future-ka inay ku helaan beri ma ku jirtaa. Okay, fiidiyowga ayaan idinka dhex tusi doonaa insha Allah ciyaartooyda aad doonayso barada haddii uu ku dhex jiro. Okay, club selection-ka ugu horeeya waa Juventus, waana kan hadda aan idin akhrin doono insha Allah. Waa max rating-ka, waa marka aad la soo seexatid training la'aan waaya. Trainingka markaa ku dartidna hadhowdii ayaan idin sii tusi doonaa marka Juventus ila arka. Kooxda ugu horeysa waxa ay noqon doontaa oo max ratingkeeda sheegi doono waa ciyaartooyda marka aad la soo seexatid oo sida ay caadiga ay yihiin waaye. Ronaldo ugu horeeya oo kooxda oo Juventus 95 ayuu ka bilowdaa. Sidoo kale Dybala ayaa ku xiga 91 ayuu ka bilowdaa. Goolhayaha Juventus 90, Delay 89 ayuu ka bilaabanaa. Cuadrado 88, Bentancur 88, Rabiot 87 iyo Bonucci. Hadda waxaa soo aragteen waa max ratingkooda. Markii oo aad training ku dartidna club selectionka oo Juventus oo hadda aad soo aragteen waa kana. Club selectionka labaad isniintan la keeni doono waxa uu noqon doonaa insha Allah kooxda lagu magacaabo Lazio oo aan horey usoo sheegay magaceeda. Waa kana markii ay tahay max ratingka. Club selectionka kooxda Lazio, Cairo Immobile ayaa ugu horeyn doono oo markuu max rating yahay waa 89. Luis Alberto kale waa 89 asna. Acerbi oo kale 88. Milik Savage-na waa 88 ayuu ka bilaabanayaa. 87 waxaa ka bilaabanaya Korea. Sidoo kale 87 waxaa kasii bilaabanaya Strakosha oo goolhayaha ah, Lazzari oo qad dhexe ah iyo Barolo oo 83 ah. Sidoo kale haddaan idin tuso marka training aad siisatid qaabkay noqon doonaan, yacni trainingka markaad siisatid waa taqaaniin. Ninka markaa la soo seexatid training ayaa siinaysaa. Trainingka markaad siisatid sida ay noqon doonaan ratingka ku kordhi doono waa kan hadda shaashada idinkaga muuqi doona. Sidoo kale club selectionka kaloo isniintan la keeni doono oo saddexaadna waa kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Club selectionkeeda marka ay tahay max ratingka ayaan arki doonaa. Waa kana Liverpool, waa kana
Fandij ayaa ugu horeeyo oo 94 ka bilaabanayo. Boqorka masaarida Maxamed Saalax 92 ayuu ka bilaabanayaa. oo Fandaj ayaa ka sareeya marka oo ka bilaabashada 94 yacni waa sida uga jeedaanba waa 94 kanna waa 92. sidoo kale Mane ayaa 92 ka bilaabanayo. Alisson 91. Robertson 88 ayuu ka bilaabanayaa. 87 Wijnaldum ayaa ka bilaabanayo. Keita 85. Tecome Minamino 84. Okay, Maxamed Saalax iyo Fandaj labadooda cidda ratingkooda markii training lagu daro uu bado doono hadda ayaad arki doontiin insha Allah. Sidoo kale waxaad sugnaaba markii training aan siino ratingka ku kordhi doono ayaan isla arkaynaa. waa kana asxaabta waxaan kasoo sheekeynay waxaan idin dhahay 4 kooxood ayaa la keenayaa isniintan. 3 kamida waa soo sheegnay oo ah Juventus, Lazio iyo Liverpool. haddaba hal koox baa noo dhiman. kooxdaas maxay noqon doontaa? waa kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo magaceeda hadda aad aragtaan. waa kooxdaas ayaa beri la keeni doonaa. haddaba markiis ratingkeeda waa kana kooxda Manchester City oo aan idin dhahay waa kooxda ugu dambeysay beri la keeni doono oo waxay ka mid tahay 4 kooxood aan soo sheegnay. waxaa ugu horeyn doona cagga dahabka ay ku faanaan reer City. Kevin De Bruyne 94 ayuu ka bilaabanayaa. Ederson oo kale waa goalkick waxa uu ka bilaabanayaa 91. Raheem Caluuk oo kale ama Raheem Sterling waxaad rabti u aqoon 91 ayuu ka bilaabanayaa. RB-ga Manchester City Kyle Walker 88 ayuu ka bilaabanayaa. Rodri oo kale 87 ayuu ka bilaabanayaa, waa DMF. Gabriel Jesus oo kale Brazil-kan waxa uu ka bilaabanayaa 87. Ruben Dias waxa uu ka bilaabanayaa 87. Phil Foden oo ah wiilka hadda laga yaaban yahay wacdaradiisa waxa uu ka bilaabanayaa 85. waa kaasa max ratingka Manchester City. markaan training siino aan aragno qaabka ay noqon doonaan iyo max ratingka ku darsami doona kooxda Manchester City. asxaabta ma rabno inuu videoga nagu dheeraado. haddaan intaas club selectionka uga soo baxo asxaabta waxa kaloo aad ku jeceshiin waxa ah in boxdroga ayaad filinaysiin maxaa lasoo wadaa. boxdroga waxaa lasoo wadaa midka hadda shaashada idinkaga muuqda oo ciyaartooydan waaweynka oo aadka u fiican oo aad 25 GB aad kula soo siixaa kartiin. asxaabta qaar GB oo rabaan inay ku bixiyaan oo ciyaaryahan oo base ah oo cusub inay la soo saxiixdaan ay doonayaan. waa kana ciyaaryahanada cusub ayaa beri la soo saxiixan kartaa oo boxdrogan ilaa waxa uu yaalayaa Arbacada insha Allah. sidoo kale asxaabta intaas ayaa isniinta ugu waaweyn. Turki iyo waxa kale oo hadda maskaxdiina ka guuxayo iyo maxaa challenge-yada aad dhiishaan iyo meelaha 25 GB aad ka qaadatiin iyo midda boqolka u xirxiran waa wixii oo isniinta hadda lasoo dhaafay la keenayo. waa waxaas club selectionka iyo boxdroga ayaa gameka ugu cusub. intaasna waa idin faa'iideyay. marka asxaabta channelka waa inaad subscribe saarto saaxiib, sababtoo videoga waqti dheer ayaan kusoo bixinay. subscribe saaro si saaxiibtinimo ah. waana ku mahadsantihiin.